God la helay taariikhda ka hor waxaa lagu tilmaamay inuu yahay saddex xagal argagax kaasoo ay jin degan yihiin sida saddex xagalka Barmuuda. Waxaa kaloo la sheegaa inuu yahay halka ugu xun ee dhulka dushiisa laga helo. Waxaa kaloo la sheegaa inuu yahay xabsiga jinka. Waxaa aad u batay sheekooyinka ceelkan iyadoo dadka ay sheegaan in qofkii gudihiisa gala mar uusan dib dambe nolol ugu soo noqon doonin, halka biyihiisa uu yahay biyaha ugu liita ee dunida laga helo. Nabiga nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee waxaa laga wariyaa axaadiis ceelkan ku saabsan, taasoo ku riixday baarayaal Cumaan ka soo jeeda inay gudaha u galaan ceelkan. Ceelkan wuxuu ku yaalaa gobolka Mahrib ee dalka Yemen, kaasoo laga qoray sheekooyin tiro beel ah laakiin aan badankood sugnayn. Sheekooyinka laga qoray waxaa ka mid ah in boqoradii hore ee jinka ay qodeen ceelkan waxayna ka dhigteen xabsi ay ku ciqaabeen kuwa amaradooda ka hor yimaada. Gudihiisa kuma noola wax aan ka ahayn masas, fiidmeer, abeesooyin iyo shimbiro. Waxaa kaloo la sheegaa in haweeney ari ku raaci jirtay ceelka dhinaciisa ay kaga tagtay ceelka agtiisa wiil yar oo ay dhashay, balse markii ay halkii ku soo noqotay ay weysay raadkii wiilkii yaraa. Waxaa kaloo la sheegaa in dadka deegaanka ay mar isku dayeen in qisada ceelkan ay wax ka ogaadaan. Markii ay goobta soo gaareen ayay midkood xarig dhexda kaga xireen, salka ceelkan u dejiyeen. Muddo dhawaqii ninkii markii waayeen ayay sugidii ninkii ku dheeraatay, waxayna go'aansadeen inay dib xariga u soo saaraan, balse waxay arkeen ninkii oo qaybta sare jirkiisa oo keliya oo xariga uu ku xiran yahay. Khuraafaadkii ceelkan markii uu tirabeel noqday ayay koox kala go'aansadeen inay arrinka ceelkan xaqiijiyaan. Sidii qoladii hore ayay mid ka mid ah xarig dhexda uga xireen, gudaha ceelkana u geliyeen, balse markii uu 50 mitir gudaha u galay ayuu degdeg saaxiibadiisa uga dalbaday inay ceelka ka soo saaraan. Balse maxaa dhacay? Markii ay weydiiyeen waxa ku kalifay inuu ceelka gudihiisa degdeg uga soo baxo ayuu ku yiri, ceelka gudihiisa waa meel aad mugdi u ah. Waxaan dareemay in ceelka afkiisa uu ugu xirmayo xilli uu ahaa mid ay ku xiran yihiin kaamirooyin casri ah si ay u soo tabiyaan waxa gudaha ceelkan ka dhacaya. Balse markii dib loo daawaday muuqaaladii kaamirooyinka ayay arkeen muuqaaladii oo gabi ahaan mugdi ah, iyadoo waqti uu howlgalka dhacaya ay ahayd xilliga cadceedda ay ugu kulushahay. Waxaa kaloo la wariyaa in nabiga nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee uu ka hadlay ceelkan, laakiin ma soo qaadanayno sababtoo ah badankood ma sugna. Waxaa kaloo la wariyaa in saxaabigii weynaa Cali bin Abi Talib radiyallahu canhu uu yiri, halka dhulka alle uu ugu neceb yahay waa toga Barhuud. Waxaa ku yaala ceel biyihiisa ay aad u madow yihiin, urtiisuna ay aad u daran tahay. Waxaa la isugu keenaa arwaaxda gaalada. Muddo qarniyo ah markii jiilba jiil sheekooyinka iyo khuraafaadka la iska soo dhaxlayay ee ku saabsan ceelkan, taasoo qofna uu ku dhici waayay inuu beeniyo ama uu rumaysto, ayay markii dambe koox baarayaal Cumaan ka soo jeeda waxay go'aansadeen inay ceelka tagaan soona xaqiijiyaan arrinta ceelkan. Waxaana ceelka isugu yimid dadkii deegaanka, kuwaasoo badiba aaminsanaa sheekooyinka laga wariyay ceelkan. Balse maxaa dhacay? Kooxdii ayaa durba tagtay salkii ceelka, iyagoo wata qalabkii baarista ayay waxay arkeen ceelka inuu yahay kaliya god weyn kaasoo gaaraya 112 mitir, halka ballaca hoose uu gaarayo 116 mitir. Hawada oksijiinka ee gudaha ayaa ah mid dabiici ah, halka heerkulka gudaha uu gaarayo 30%. Biyaha loogu tagay waxay yihiin kuwa saafi ah oo weliba aad u macaan. Waxaana gudihiisa laga helaa 3 biyo dhac oo ah halka rasmiga ah uu ceelkan biyaha ka helo. Sidoo kale kooxdii baarayaasha ahaa waxay gudaha ceelkan ka heleen qoraale Ingiriis ah kuwaasoo lagu xardhay darbiyada ceelka, taasoo u xaqiijisay in gumaysihii Ingiriiska ay ka dhigteen saldhig xilliyadii ay gumaysan jireen Yemen. Halkaas ayayna kooxdii baarayaasha ahaa ee reer Cumaan kaga daba tageen sheekooyinkii iyo khuraafaadkii beenta ahaa ee ceelkan laga alifi jiray, kuwaasoo jiilba jiilka ka dambeeya ay ka sii dhaxli jireen.